بسم الله الرحمن الرحيم معاميشينا شرفت له ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba walaalayaal sidaa nooga barateenba waxaa maanta mar kale idin soo gudbinaynaa guri iib ah walaalayaal ku soo dhawaada daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waxaa rajeynayaa in aad ka heli doontaan insha Allahu tacaala walaalayaal waxaa iib ah guri maasha Allah meel fiican ku yaala magaalada dhexdeeda ah waa xaafadihii hore ee magaalada Muqdisho waa xaafad deegaan ahaan aad u fiican xagga wadooyinkana wadooyin macquul ah leh wadada guriga waa tanaa gurigana waa gurigaas fillada ku dhagan ee dhismihii hore ah waxaa ku dhow meeshan isgoyska ah oo jidcadaha ah meeshan isgoyska ah labadooda ay ku kulmaan booska iibka ah waxaa ka xiga oo kaliya ama guriga iibka ah dhahay waxaa ka xiga oo kaliya hal boos waa kana aragtaan waa isgoys weyn waxaan joognaa Madiino waxay ku fiican tahay wadooyinkeedana waa weyn yihiin boosaskeedana waa weyn yihiin in badan oo idin kamid inay ka dharagsan tahay ayaa filayaa walaal guriga iibka ah waa gurigan albaabka yarka ah leh rinjiga cad uu marsan yahay dhismo hore ayaa ka dhisan waa lagu nool yahay haddana muddo waa lagu sii nafci karaa laakiin haddii aad doonto waxaa ka soo qaadi kartaa inuu boos bannaan yahay oo kale waxaa kuu furan inaad dhistid oo fillo ama dabaq sida guryaha agagaarkiisa ku yaalla ka dhigtid dhinacan waxaa ka xigta guri fillo ah oo qurux badan dhankaas kalena waxaa ka xiga guri dabaq ah kasoo horjeedka waa aragtaan ha la soo dhawaado walaalayaal waxaan guda gelayaa xogta gurigan iibka ah oo dhammaystiran insha Allahu tacaala ka bogasho wacan walaalayaal haddii aan ku bilaabo meesha uu ku yaallo gurigan iibka ah waxa uu ku yaalaa magaalada Muqdisho walaalayaal magaalada Muqdishona waxa uu uga sii yaalaa degmada Dharkeenley waxa uu uga sii yaalaa xaafadda Xaaji Gaabow ama eriyada macmacaanka walaalayaal laamiga markaa joogtid Xaaji Gaabow ayaa waxa u leexanaysaa dhanka koonfureed ama markaa ka timaado suuqa weyn iyo dhankaas qaybta ka qabanaysa gacanta bidix laamiga walaalayaal waxaa ka xigo 16 boos oo kali ah waxa uu ka naqanayaa ama uu ka yahay booska 17aad walaalayaal waxaa 16aad ka ah booska laba jidlaha ah jidkan ama isgoyskan ka xigo asagana waa nuska koobaad booska 17aad marka laamiga Madiino laga soo tiriyo waxa uu walaalayaal ku dhow yahay masaajidka Cusmaan bin Affan waa xaafadda macmacaanka laamigana 17aad wax badan ma aha waxa ka xiga oo kaliya waa labo looto ama labo baloog safki waa 5 boos kadib wada imaanaysa marka waa jidka labaad marka goysid ayuu wuxuu ka yahay booska labaad soo dhawaada walaalayaal runtii waa boos ku yaal meel istiraatiiji ah xaafad la jecel yahay ka faa'iideysta haddii aan walaalayaal ka hadla xagga cabirka uu ku fadhiyo walaalayaal cabirka uu ku fadhiyo dhulkaani waa 20 lagu dhuftay 10 ama finti bardiyeeshe hadba sida u taqaano wijiga hore ee hadda aragtaan waxa uu ka yahay 10 mitir taasoo ballac ah gadaalna walaalayaal waxa uu yahay ama dhirir 20 mitir runtii waa cabir macquul ah waa cabir waasac ah markiis hore waxa uu ahaa finti barfinti marka waa finti barfinti ama 20 la kala gooyay qaybtiba markaas ay noqotay 10 lagu dhuftay 20 waxaana qaybtii ka dhisi kartaa fillo ilaa 5 qol ama 6 qol hadba sida doontid ama guri dabaq ah oo weyn sida hadda muuqaalka ka aragtaan guryaha dhisan waxay u badan yihiin
diyeesha hadda gurigaas dabaqa ah oo kale waa diyeesha barfinti. marka soo dhawaada walaalayaal, xagga cabirka waa cabir macquul ah, cabir waasac ah. meesha uu ku yaalan waa istiraatiiji. suuq ahaan suuqa macmacaanka kaama dheera, sidoo kale suuq boocle ayaa kasoo adeegi kartaa. marka dhul wadooyin ahaan fiican, cabir ahaan fiican, laamiga u dhow, haddana suuqi ay ku dhow yihiin, layskama heli karo. waa fursad. soo dhawaada ka faa'iidaysta. aan u gudagalo walaalayaal xagga qiimaha ama lacagta lagu rabo dhulkan iibka ah. walaalayaal waxaa lagu rabaa 75,000 oo doolarka Mareykanka ah oo isku dhammaad ah. waa macal dalaal iyo heshiis. walaalayaal waxaa la yiraahdaa beec meesha ka bilowday kuma dhammaado. qiimahaasi waxaa ka furan gorgoro. wixii macquul ah waa la idinka dhimayaa insha Allahu tacaala. walaalayaal lambarada meesha ku qoran nagala soo xiriira. haddii aan nahay shirkadda Dallis Real Estate, waxaan diyaar u nahay inaan idin soo tusino. haddii aad ku qanacdaanna qiimaha wixii macquul ah la idinka farageliyo insha Allahu tacaala. weliba ilaa xad la idin dhaqaaleeyo, la idin soo dhaweeyo. walaalayaal haddii aad maqan tihiin waa nala soo xiriiri kartaan xagga WhatsApp-ka. faahfaahin buuxda ayaa idin siinaynaa. kadib qof wakiil ah ayaa soo dirsanaysaan insha Allahu tacaala. muuqaalka fiirsada kadib nala soo xiriira. haddii qofka wakiilka ah aad soo dirsataan oo la idinka soo arko, kadib qiimaha wixii macquul ah waa la dhimayaa, waa la heshiinayaa. soo dhawaada walaalayaal, qiimahana waa macquul ah, laga faa'iidaysto. haddii aan u gudbo walaalayaal xagga wadooyinka, sidaa idiin sheegaba booskani waxaa hormarta wado weyn, 2 jidlaha baa laga xigaa. marka waa hal jidle, waa guri hal jidle ah. hal wado oo weyn ayaa hormarta, laakiin 2 jidlaha ma dheer, hal boos kaliya ayaa ka xiga. wuxuu ka yahay 2 jidlaha Sugunto. walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka oo ujeedo, walaalayaal gurigani waa galbeed ujeed. wuxuu ujeedaa dhanka galbeed. haddaa fillo ama dabaq ka dhistid oo casriyeysidne, dhanka galbeed ayuu usoo jeesanayaa. maxaa yeelay saddexda dhinac waxaa ka xigo guryo ay dad kale ay leeyihiin. walaalayaal haddii aan u gudbo xagga sharciga iyo dukumiintiga uu leeyahay gurigan iibka ah, walaalayaal gurigani waxa uu leeyahay dukumiinti saxan oo dhammaystiran, kaas oo ah rasiid iyo sabarloog Maxamed Siyaad Barre ah. waa dukumiintiyadii 1991 ka hor la bixiyey. xaafadana waxaa la cabiray dabcan xilligii dowladii kacaanka. marka waxa uu leeyahay dukumiinti saxan dhammaystiran, isla markaasina ah rasiid iyo sabarloog Maxamed Siyaad Barre ah. waa original, waa dukumiinti la hubo oo isku haleyn kartid. shirkadda Dallis Real Estate haddii aan nahay, waxaan diyaar u nahay inaan dukumiintiga kuu geyno nootaayadii aad dalbatid si lagaaga hubiyo saxaanshaha dukumiintiga insha Allahu tacaala. dhul ama guri iyo dhammaan hantida maguurtada ah, waxa ugu horeeya la iska fiiriyo waa dukumiintiga. marka gurigan dukumiintigiis waa heer sare. waxyaabaha kale ee la fiiriyo waxaa ka mid ah wadada iyo xaafadda deegaan ma tahay. inta waa uu kulansaday. xagga qiimahana waa macquul, 75,000 oo doolarka Mareykanka ah kaliya. walaalayaal soo dhawaada, ka faa'iidaysta. sidoo kale haddii aad xaafadan iyo dhammaan xaafadaha degmooyinka gobolka Banaadir ku leedahay dhul ama guri beec ah, nala soo xiriir. sidaan oo kale ayaan kugu beec geynaynaa insha Allahu tacaala. sidoo kale walaalayaal haddii aad u baahan tihiin dhul ama guri beec ah xaafadan iyo dhammaan xaafadaha iyo degmooyinka gobolka Banaadir, sidoo kale nala soo xiriir, waan idiin helaynaa insha Allahu tacaala. ugu dambeyntii walaalayaal, waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallis Real Estate. walaalayaal waxaan si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambaleelkana aad furataan idinkoo mahadsan, si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelinayno insha Allahu tacaala. soo dhawaada mar kale, waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bismi illaahi raxmaani raxiim. macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallis Real Estate, walaalayaal soo dhawaada. ku soo dhawaada gacmo furan, ku soo dhawaada qalbi furan, ku soo dhawaada adeeg hufan oo idin raali geliya. haddaba walaalayaal, sidaa nooga barateenba, waxaa maanta mar kale idiin soo gudbinaynaa guri iib ah
walaalayaal ku soo dhowaada daawasho wacan ka faa'iidaysi wacan waxaa rajaynayaa in aad ka heli doontaan insha allahu tacaala. walaalayaal waxaa iib ah guri maasha allah meel fiican ku yaala magaalada dhexdeeda ah. waa xaafadihii hore ee magaalada muqdisho. waa xaafad deegaan ahaan aad u fiican, xagga wadooyinkane wadooyin macquul ah leh. wadada guriga waa tanaa, gurigana waa gurigaas villada ku dhegan ee dhismihii hore ah. waxaa ku dhow meeshaan isgoyska ah oo jidcadaha ah. meeshaan isgoyska ah labadooda ay ku kulmaan booska iibka ah waxaa ka xiga oo keliya, ama guriga iibka ah dhehe waxaa ka xiga oo keliya hal boos. waa kana waa aragtaan, waa isgoys weyn. waxaan joognaa madiino. madiino waxay ku fiican tahay, wadooyinkeedana waa weyn yihiin, boosaskeedana waa waaweyn yihiin. in badanoo idinka mid inay ka dheragsan tahay ayaa filayaa. walaalayaal guriga iibka ah waa gurigan albaabka yarka ah leh ee rinjiga cad uu marsan yahay. dhismo hore ayaa ka dhisan, waa lagu nool yahay, haddana muddo waa lagu sii nafci karaa. laakiin haddii aad doontid waxaa ka soo qaadi kartaa inuu boos bannaan yahay oo kale. waxaa kuu furan inaad dhistid oo fillo ama dabaq sida guryaha agagaarkiisa ku yaalla aad ka dhigtid. dhinacan waxaa ka xigta guri fillo ah oo qurux badan, dhankaas kalena waxaa ka xiga guri dabaq ah. kasoo horjeedka waa aragtaan. ha la soo dhowaado walaalayaal. waxaan guda gelayaa xogta gurigan iibka ah oo dhammaystiran insha allahu tacaala. ka bogasho wacan walaalayaal. haddii aan ku bilaabo meesha uu ku yaallo gurigan iibka ah, waxa uu ku yaallaa magaalada muqdisho. walaalayaal magaalada muqdishone wuxuu uga sii yaallaa degmada dharkeenley. degmada dharkeenley wuxuu uga sii yaallaa xaafadda xaaji gaabow ama eriyada macmacaanka. walaalayaal laamiga markaad joogtid xaaji gaabow ayaa waxaa u leexanaysaa dhanka koonfureed, ama markaa ka timaado suuqa weyn iyo dhankaas qaybta kaa qabanaysa gacanta bidix. laamiga walaalayaal waxaa ka xigo 16 boos oo keli ah. waxa uu ka naqanayaa ama uu ka yahay booska 17aad. walaalayaal waxaa 16aad ka ah booska laba jidlaha ah jidkan ama isgoyskan ka xigo. asagana waa nuska koowaad booska 17aad marka laamiga madiino laga soo tiriyo. waxa uu walaalayaal ku dhow yahay masaajidka cusmaan bin cafaan. waa xaafadda macmacaanka. laamigana 17aad wax badan ma aha. waxaa ka xiga oo keliya waa 2 looto ama 2 baloog. baloogi safki waa 5 boos. 5 boos kadib wadda imaanaysa, marka waa jidka labaad. markaa goysid ayuu wuxuu ka yahay booska labaad. soo dhowaada walaalayaal. runtii waa boos ku yaal meel istiraatiiji ah, xaafad la jecel yahay. ka faa'iidaysta. haddii aan walaalayaal ka hadlo xagga cabirka uu ku fadhiyo, walaalayaal cabirka uu ku fadhiyo dhulkaani waa 20 lagu dhuftay 10 ama finti bardiyeeshe, hadba sidaa u taqaano. wejiga hore ee hadda aragtaan wuxuu ka yahay 10 mitir, taasoo ballac ah. gadaalna walaalayaal wuxuu u yahay ama dhirir 20 mitir. runtii waa cabir macquul ah, waa cabir waasac ah. markiisa hore wuxuu ahaa finti barfinti, marka waa finti barfinti ama 20 la kala gooyay. qaybtiiba markaasi ay noqotay 10 lagu dhuftay 20. waxaana qaybtii ka dhisi kartaa fillo ilaa 5 qol ama 6 qol, hadba sidaa doontid, ama guri dabaq ah oo weyn. sida hadda muuqaalka ka aragtaan guryaha dhisan waxay u badan yihiin diyeeshe. hadda gurigaas dabaq ah oo kale waa diyeeshe barfinti. marka soo dhowaada walaalayaal. xagga cabirka waa cabir macquul ah, cabir waasac ah. meesha uu ku yaalana waa istiraatiiji. suuq ahaan suuqa macmacaanka kaama dheera. sidoo kale suuq boocle ayaa ka soo adeega kartaa. marka dhul wadooyin ahaan fiican, cabir ahaan fiican, laamiga u dhow, haddana suuqi ay ku dhow yihiin, layskama heli karo. waa fursad. soo dhowaada ka faa'iidaysta. aan u guda galo walaalayaal xagga qiimaha
ama lacagta lagu rabo dhulkan iibka ah walaalayaal waxaa lagu rabaa 75,000 oo doolarka Mareykanka ah oo isku dhamaad ah waa macal dalaal iyo heshiis walaalayaal waxaa la yiraahdaa beec meesha ka bilowday kuma dhamaado qiimahaasi waxaa ka furan gorgoro wixii macquul ah waa la idinka dhimayaa insha Allah tacaala walaalayaal lambarada meesha ku qoran nagala soo xiriira haddii aan nahay shirkadda Dallis Real Estate waxaan diyaar u nahay inaan idin soo tusino haddii aad ku qanacdaan qiimaha wixii macquul ah la idinka farageliyo insha Allah tacaala weliba ilaa xad la idin dhaqaaleeyo la idin soo dhaweeyo walaalayaal haddii aad maqan tihiin waa nala soo xiriiri kartaan xagga WhatsApp-ka faahfaahin buuxda ayaan idin siinaynaa kadib qof wakiil ah ayaa soo dirsanaysaan insha Allah tacaala muuqaalka fiirsada kadib nala soo xiriira haddii qofka wakiilka ah aad soo dirsataan oo la idinka soo arko kadib qiimaha wixii macquul ah waa la dhimayaa waa la heshiinayaa soo dhawaada walaalayaal qiimahana waa macquul ah laga faa'iideysto haddii aan u gudbo walaalayaal xagga wadooyinka sida idin sheegaba booskani waxaa hormarta wado weyn laba jidlaha baa laga xigaa marka waa hal jidle waa guri hal jidle ah hal wado oo weyn ayaa hormarta laakiin laba jidlaha ma dheer hal boos kaliya ayaa ka xiga wuxuu ka yahay laba jidlaha sugunto walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka oo u jeedo walaalayaal gurigani waa galbeed ujeed wuxuu u jeedaa dhanka galbeed haddaa fillo ama dabaq ka dhistid oo casriyeysidne dhanka galbeed ayuu usoo jeesanayaa maxaa yeelay saddexda dhinac waxaa ka xigo guryo ay dad kale ay leeyihiin walaalayaal haddii aan u gudbo xagga sharciga iyo dukumiintiga uu leeyahay gurigan iibka ah walaalayaal gurigani waxa uu leeyahay dukumiinti saxan oo dhammaystiran kaas oo ah rasiid iyo sabarloog maxamed siyaad barre ah waa dukumiintiyadii 19 ka hor la bixiyay xaafadana waxaa la cabiray dabcan xilligii dowladii kacaanka marka waxa uu leeyahay dukumiinti saxan dhammaystiran isla markaasina ah rasiid iyo sabarloog maxamed siyaad barre ah waa original waa dukumiinti la hubo oo isku haleyn kartid shirkadda Dallis Real Estate haddii aan nahay waxaan diyaar u nahay inaan dukumiintiga kuu geyno nootaayadii aad dalbatid si lagaaga hubiyo saxaanshaha dukumiintiga insha Allah tacaala dhul ama guri iyo dhammaan hantida maguurtada ah waxa ugu horeeya la iska fiiriyo waa dukumiintiga marka gurigan dukumiintigiis waa heer sare waxyaabaha kale la fiiriyo waxaa kamid ah wadada iyo xaafadda deegaan ma tahay inta waa uu kulansaday xagga qiimahana waa macquul 75,000 oo doolarka Mareykanka ah kaliya walaalayaal soo dhawaada ka faa'iideysta sidoo kale haddii aad xaafadan iyo dhammaan xaafadaha degmooyinka gobolka Banaadir ku leedahay dhul ama guri beec ah nala soo xiriir sidaan oo kale ayaan kugu beec geynaynaa insha Allah tacaala sidoo kale walaalayaal haddii aad u baahan tihiin dhul ama guri beec ah xaafadan iyo dhammaan xaafadaha iyo degmooyinka gobolka Banaadir sidoo kale nala soo xiriir waan idin helaynaa insha Allah tacaala ugu dambeyntii walaalayaal waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallis Real Estate walaalayaal waxaan si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan gambaleelkana aad furataan idinkoo mahadsan si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelinayno insha Allah tacaala soo dhawaada mar kale waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh